la taliyay madaxweynaha Soomaaliland dhinaca arrimaha bulshada Fuad Aadan Cabdi oo la socda waftigii uu hogaaminayay wasiirka caafimaadka Soomaaliland Dr. Salmaan Xagla Toosiye ayaa xalay soo gaaray magaalada Burco kadib markii ay ka soo kicitimeen degmada Xudun ee ka tirsan gobolka Sool. Fuad Aadan Cabdi oo maalmuhu dambeeyay warbaahinta Soomaaliland ka qoraysay inuu xamaamadiisa ka urursaday Soomaaliland una sii jeedo dhanka Puntland oo hadda sugan magaalada Burco ayaa wareysi u siiyay telefishinada Home Cable TV iyo qaranka waxa uu ku sheegay in arintaasi ahayd male aan la hubin oo la iska faafiyay isla markaana waxa uu xusay in aan u gudbeynin dhinaca magaalada Hargeysa oo ku sugnaan doono magaalada Burco. ninka igu maleeyay inaan Soomaaliland ka tagayo mala aad iyo aad u khaldan buu imaleeyay wallahi niyadeyda kuma soo dhicin habeenna inaan Soomaaliland ka tago xudun baan joogay xudunna waa Soomaaliland ciidamadii qarankaan wada joognay. Fuad Aadan Cabdi oo ka jawaabaya su'aal ahayd in wafdiga horkacaya wasiir Xagla Toosiye ay dib ugu soo ladqabeeyeen dhanka Soomaaliland kana soo kaxeeyeen xudun ayaa waxa uu yiri xudun jooga Leyland dheereeyay khasab Burco la igu keenay marka imuu soo ladqabeynine wuu soo xoogay wasiirku isagoo kaashanaya Cabdirashiid iyo Kalash ay saaxiib yihiin marka xoog Burco la igu keenay hadda wasiirku wuxuu kaga adkaaday inuu xudun iga soo qaado oo i keeno Burco ana waxaan kaga adkaaday inaan ilaahdo mar haddaan Burco joogo Hargeysa ku raacimayo nabadgelyo. mar kale Fuad oo ka jawaabaya arrimaha ay ka wada hadleen Ali Khaliif Galeyd oo xidhiidh dhinaca telefoonka ah dhex maray iyo saameynta maamulka uu sameeyay ku yeelan karto Soomaaliland iyo arinta xaabsade ee uu talaabay dhinaca Puntland ayaa waxa uu yiri ka wada hadal Ali de waa madaxweynaha loo doortay horta Arbacadii waxay ii sheegay Khamiista in la dooranayo iyadoo lagu kalifay oo lagu khasbay oo lagu dhaariyay inaanu sidii markii taliix la isugu yimi yeeline uu ka tagin dadka aan qabaa inuu Soomaaliland la xisaabtamo inuu yiraahdo dhiga xitaa 23 sanadood ee naga maqan xaqayagii Soomaaliland ku maqan yahay inuu raadiyo inuu qayb ka noqdo meesha ku habboon madaxweyne ka noqon kara waa Soomaaliland. xabsada Soomaaliland markuu joogay waxna waan ka sheegi jiray waana murmi jiray waana wada hadli jirnay laakiin hadda hadduu garoowe aaday waxba ka sheegi maayo. warkacayay wasiirka caafimaadka Dr. Salmaan Xagla Toosiye una weheliyay Fuad Aadan Cabdi ayaa maanta waxa kulan qada ah Hotel City Palace ugu sameeyay maamulka dawladda hoose Burco waxaana kulankaasi ka soo qayb galay waxgarad iyo odayaal reer Burco xubnaha golaha deegaanka iyo marti sharaf kale. Axmed Digaale, Home Cable TV, Burco.